أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka ee Dr. Minow Dabiib Yaqaan. Caawa waxaynu ka hadlaynaa daawooyinka iyo bisha Ramadaan. Dadka u baahan inay daawooyin qaataan haddana awood u leh inay soomaan sidee ayay yeelayaan ayaynu mowduuceenu uu ku saabsan yahay. haddii qofkii uu aad iyo aad u xanuunsan yahay oo inuu soomo fajarka ilaa qoraxda ay ka dhacayso noloshiisa ay khatar galayso, qofka ilaahay ruqsad ayuu siiyey oo suuratul baqara aayadaha soonka ka hadlayo ayayba ku caddahay. laakiin qofka noloshiisa ayna khatar galaynin oo awood u leh inuu soomo oo daawooyinkiisii sidii maaragtay loo qiyaasi lahaa ayuu mowduuceenu ku saabsan yahay. haddii daawada loo baahan yahay in hal mar oo keliya la qaato, way jiraan daawooyin badan oo hal mar la qaato 24 saac, kuwa dhib ma keenayaan. waayo haddii maaragtay qofka uu maalintii sooman yahay wuxuu awood u helayaa inuu daawooyinkiisii qaato afurka iftaarka kadib ama saxuurta ka hor ayaa maaragtay uu awood u heli karaa. waxa aan ka hadlaya waa oo dhibka keenaya waxay tahay marka daawada loo baahan yahay 24 saacadood dhowr mar in la qaato si dhibaatada qofka haysato loo daaweeyo. daaweyn waxaa jira loo baahan yahay in la qaato 3 mar 8 saac mar la qaato, kuwa waxaa jira 4 mar la qaato oo 6 saacba qofka inuu mar qaato. way maaragtay jadwalkoodu wuu badan yahay, marba daawada sida loo sameeyay ayay ku xiran tahay. isla hal daawo ayaa waxaa jirto mid dhowr mar in la qaato u baahan, mid kaloo isla daawada ayaa waxaa loo sameeyaa hab maaragtay jirka saacado badan ay ku jirayso oo 12 saacba hal mar la qaadanayo ama 24 saac hal mar la qaadanayo. inta badan daawooyinka waqtiga dheer jirka ku jiraya oo extended release la yiraahdo way ka qaalisan yihiin kuwa kale. marka haddii qofka uu ku nool yahay dhul baraha meelaha u dhow sida Soomaaliya oo kale, dadka inta badan habeenkii iyo maalintii way isla egyihiin oo waxay helayaan 12 saac ku dhawaad saacada ah oo uu qofka uu afran yahay habeenkii, oo daawadii haddii ay 2 mar la qaadanayo ama haddii 3 mar la qaadanayo loo qiyaasi karo. maaragtay afurkii oo kale ayuu qaadanaya. haddii maaragtay 6 saac loo dhaxaysiin karana afurkii ilaa haddana saqda dhexe ayuu mid kala qaadanaya, haddana midda kale wuxuu qaadanayaa saxuurta ka hor ayuu qaadanaya. laakiin dhibaatadu waxay imaanaysaa marka qofka uu ku nool yahay cirifyada adduunka, oo waxaynu ognahay markuu waqooyiga America joogo kale ama markuu joogo New Zealand ama Australia kale, waqtiyada maaragtay maalintii iyo habeenkii ayaan isla ekeen. markuu ramadaanku ku soo aado xilliga ay maalintu dheer tahay, markuu ku soo aado oo habeenkiina uu yar yahay saacadihiisa, waxaa dhici karta mararka qaarkood in habeenkii uu noqdo 6 saac amaba ka yar. marka waqtiga uu afuran yahayna uu soo yaraaday. marka daawadii haddii dhowr mar la qaadanayo ma suurtoobayso. haddii la qaadanayo maaragtay 8 saacba meesha 8 saacba looma hayo oo habeenkii dhanba ayaa wuxuu kusoo koobmay 6 saac ama wax ka yar. dadka oo kale inay takhaatiirtoodii la tashtaan ayaa fiican. haddii daawada ay 2 mar qaadanayaan ama 3 mar ay qaadanayaan, haddii loo heli karo nooc maaragtay saacado badan jirka ku jirayo oo hal mar la qaadanayo, taa ayaa fiican. marka waxay ku xiran tahay mar walba duruufta meesha taala, daawada la heli karo, saydaliyada qofka meesha uu degan yahay laga helayo, farmasiyaha ama saydaliyada laga helayo ayay ku xiran tahay waxa ay hayaan. wadamada soo koraya sida Soomaaliya oo kale suurtagal ma aha mararka qaarkood daawooyinka qaaliga ah oo saacadaha badan jirka ku jirayo in ayaa waxa dhici karta inaan bal helin. haddii marka ay saa tahay inuu marka qofka dhakhtarkii la tashto wixii la sameyn karo si maaragtay cudurkiina loo daaweeyo, ramadaankiina uu u soomo, in maaragtay hadalkii inta ayuu maaragtay dib ugu noqonayaa oo qofka iyo dhakhtarka inay la tashtaan
si maaragtay daawadii loogu qiyaaso bishii ramadaanna hadday suurtagal tahay inuu faradkeedii u guto. intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor minow dabiib yaqaan oo caawa aynu kaga hadlaynay ramadaanka iyo daawooyinka. inta barnaamij kaloo kan oo kale ah aynu ku kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa naarta laga xoreeyo, ramadaankiisana inuu ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabad iyo caano inagu gaarsiiyo dalkeena Soomaaliya wasaa'ir bilaad almuslimiin, inuu raqaa'an aaminan mutma'inan inuu ilaahay ka dhigo ayaanu rajaynaa oo ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.